dhacdadan lagu qoray derbiga masaajidka qoraalka waxay isku maalin ahaayeen jimcihii New Zealand labada masaajid dadka lagu laayay. Masjid Imaan Shaafici waa masaajidkii ugu horeeyay ee Soomaalida Minnesota ka furto bartamihii sagaashanaadkii, waxa uuna ku yaalaa xaafadda Soomaalida aadka u degan tahay ee sida Riverside lagu magacaabo. Sheekh Cabdiqani Maxamed Cali Qardaawi waa iimaanka masaajidka, wuxuuna iiga waramay dhacdada arintan. Annaga qoraalkan lagu qoray waxaan isku daynay inaan helno kaamirada masaajidku wayna tustay sidaad ku arki doontaan insha Allah taala qofka ku qoraya meesha. Ninka isaga ah wuxuu soo istaagay iyadoo baraf dhacaysa habeenkii 1:03 am buu soo istaagay ilaa laga gaarayo 1:45 am 45 daqiiqo ku qorayay. Markii aan la kaashanay intaan sawirada qaadnay ayaan waxaan u tagnay booliska magaalada u geynay. Boolisku waxay yiraahdeen baaritaan ma sameeyna wayna soo wacaynaa. sidoo kale gudoomiyaha xaafadda Cabdi Warsame baan la hadalnay. Cabdi Warsame wuxuu noo sheegay in og yahay oo booliska ka warsugaya. qoraalka derbiga ku qoran waa erayo kooban oo tiro wata, macnayna u baahan. marka maamulka masaajidka maxaa loogu fasiray erayada derbiga lagu qoray? dad qodobsi ku macnaysa runtii naag soo wacday ko wariyaasha ah idaacad ka socotay waxay ku tiri waa waxyaalo ku tusinaya isir nacayb ama islaam nacayb ku tusaya. dad Soomaaliyeed waa jira runtii tarjumay oo yiri anaga naqaan luqadan. Mesela dhinaca midigta waxa ku qoran masaajidka D25 wuxuu ku macnay wuxuu yiri waxa weeye waa Daesh to finish. dhinacana for share baa ku qoran marka waxa weeye macnaheedu waxa weeye biri waa 48 hours. marka 48 hours ku dhamay dadka ayaga baa maartay ugu qoran. Saciid Nuur waxa uu ka mid yahay odayaasha ku soo tukada masaajidka degan xaafadan, wuxuuna ii sharaxayaa cabsida uu qabo waayadan. waxaan dhahaa ama inta soo galaan masaajidka kugu gubaan oo wax kugu dhuftaan. marmar waxaan isleeyahay dib isaga noqo oo guriga iska tag oo salaada waagu bariyo imow. marmar isdhihi marmarna waa iska naxi. dhacdadii toddobaadkii hore ka dhacday New Zealand waxay walwal hor la gelisay muslimiinta ku nool galbeedka. Cabdiqaadir Daaci waxa uu ka mid yahay dadka degan xaafadan, wuxuuna iiga waramayaa dareenkiisa. waxaan oran lahaa dhammaan dhacdadan hadda ku dhacday Masjid Shaafici oo derbiga lagu qoray ah oo graffiti lagu sameeyay waxa weeye waa dhacdo aad iyo aad u baqdin gelinaysa dhammaan dadweynaha muslimiinta ee ku nool wadamada reer galbeedka. marka waxaan oran lahaa inay feejignaadaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo dhammaan ay masaajidada ku yaala qaaradaha galbeedka especially hadda wadankan ku nool dalka Mareykanka kale inay feejignaadaan oo isla markaasna ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ka jira xilliyada marka masaajidka la xiraa. waa muhiim weeye wax kasta dhici kara especially maalmaha jimcooyinka inay feejignaadaan waa muhiim weeyaan. imaamka masaajidka Sheekh Qardaawi wuxuu ii sheegay in su'aalaha ugu badan ee maalmahan la weydiiyay ay tahay kuwa ku saabsan dhanka amniga. Hadda waxa isku beegmay qoritaankii la qoray iyo dhacdada ka dhacday meeshii loo New Zealand dad badan lagu laayay. masaajidka dadka jooga runtii concern badan bay ka muujiyeen, su'aalo badan baa la isweydiiyaa oo ku saabsan xagga amniga ku saabsan. in masaajidka dadku markay tukadaan runtii aad bay wada hadlaan yaa waardeenahayay iyo ilinka taagan iyo wax noocaas oo kale ah. masaajidkana runtii insha Allah taala awal bisha Ramadaanka baan waxaan qaban jirnay 30keeda bari inaanu maartay u qabanno cid hubaysan oo waardiyaysa. hadda dadka waxaan kula talinay maartay in ay aanu qabsano security joogto ah oo maartay dabada bariba asbuuciba joogto ah. marka dadku su'aalahaas bay maartay hadii ka hadlayaan goorta la qabanayo iyo in arinta la sameeyo inay ka wada qayb qaataan. qof walba ka mid ah wuxuu leeyahay anaga bixinayna kharashka loogu talagalay hal la qabto.